hooyada masaakiinta hortiina ka muuqato oo jilbaab gududan gabadheeda si xanuun la ayay u dhimatay gabadheeda saqiir aad dabaq ayaa laga soo tuuray oo way dhimatay qof dabaq la soo tuuray waliba oo saqiira nolol awal maartay lagu fileen hooyada masaakiinta ilmaheedii wax ka diri ilaa wax ka bari in dhig kar dhamaan ilaa kurid oo qalal ku dhaco oo adduunka kuleel iyo cadaab ay ku mutaysaan bal fiiri hooyada masaakiinta cunugeeda yarka oo gabadhi ay ka dileen dabaqa ka soo tuureen waana ka tageen bal fiiri ilaa nagu dhaashay muqdisho wax ka socda wax la fiirsan kara maaha bal fiiri hooyada masaakiinta gabar yar dugsi quraan dhiganaysa in la damaaciyo misna laga soo tuuro dabaq waa wax aad iyo aad u weyn oo dambiyada ka dhacaya muqdisho ay ka mid tahay hooyada maanta farxad ay soo jirtay bal fiiri wajigeeda soo noqday way murugaysantaa maanta ilintii ayaa ka dhamaatay gabadheedii niyad ayay ku dhisi jirtay ee waa la qabtay xaasinimo ayaa loo soo tuuray ilaahow qofkaas gabadhaas masaakiinta dilay oo si xun nolosha ku silay adduunka ciqaab ku tus dhig kar dhama ilaahow kuri ninkaas qofkaas nuucaa sameeyey Soomaaliya hooyada masaakiinta u duceen qalbiga u dejin walaa waa ka xumaa walaa waa ogta hooyo walba ayaa dareemi karta xanuunka ee leedahay carruurtaada aad jeclayd in si xanuun laga dilo waliba dabaq laga soo tuuro intaas madax dhiig ku furto isbitaal madiina la geeyay ka bacdina maanta ay geeriyood aad baa ugu xumaa hooyadaasi tacsi itiraaya ayaa la qaybsanayna ilaahay qalbiga u qaboojiyo qofkii ka dilana hooyo gabadhaas yarta oo gacan ku dhiilanay ilaahay wax ka badin dhiig kar aadama inaa ku rido adduunka inuu ciqaab ku maro aakhirna cadaab ayaa u rajeynaya Soomaaliyay hooyadaas u duceeno qalbiga u qaboojin ilaahay inuu qalbigu qaboojiyo oo samir email ka sii gabadheeda masaakiinta oo gacan ka xaqdan dishay war dadka intay socdaan war dadkaana adduunkaana ay siiyeen in aakhir la tagay xisaab taalo dadkaana ma oga Soomaaliyay muuqaal kala qadmay la gaarsiiyo hooyada masaakiinta wallahi gurmad iyo baahanta gabadheeda laga dilay caloosha ayaa xanuunaysa barfiir waa saqiir waxay galabsta weeratay ma jirto maanta way geeriyootay waliba geeri xanuun badan ayay geeriyootay barfiir dabaq ayay ka saracday madaxa iyo dhulka sida qaro oo kale u dhacday dhiiga madaxa ku furtay laba bir ayay kooma ku jirtay maanta way dhimatay hooyadaas barfiir oo quwad ay ka galeen bal hooyadaas habaarkeeda maanta intee la gelayaa bal ii Soomaaliyay hooyada habaarkeeda iyo isheeda maanta intee la gelayaa gabadheeda sida xun loo dilay ilaahay wax ka bari qofka sidaas sameeyay oo falka xunka wuxuu ku kacay in ilaahay neefta ku celiyo oo naqas ku dhajiyo asaa dareeminaya xanuunka ay leedahay neefsashada muuqaalka sharkaleeya hooyadana u duceyno ilaahay qalbi u qaboojiyo gabadheeda masaakiinta sida gardar loo dilay oo xanuunka loo dilay oo waxba qalabsan oo saqiira oo dugsi quraanka aad ka imaata ayaa dabaq laga soo tuuray bal fiir geeri u xanuun badan waa noocaas qofka dabaq laga soo tuuray misna dhulka ugu dhacay sida xanuun leh kooma galay maskaxdiisa qarxay dhiig ku furtay haddana misna loo bil ka bacdi ambulooyin ama maalmo dhintay aad baa ugu xumahay waa la murugoonaa dareenka hooyanimo ayaa la qaadanaa iyo waalidnimo ummad islaamka ayaa gorab taagan hooyo macaan ilaahay qalbiga ku qaboojiyo gabadhaada inta dishane ilaahay naqaska ku dhiig kar dhama ilaahay ku rido bal fiiri maanta xanuun ayay dareentay maanta carruurteeda ayay ka dileen shargaree muuqaalkaasi Soomaaliyay gabadhaasi nolol xanuun badan ayay dhimatay si xanuun badan ayay dhimatay nolosha ayay ku xanuujiyeen shargaree muuqaalka saqiir waaye waxay galabta habeertay ma jirto adduun ilaahay uu ku cadaabayaa aakhirna cadaabaya u taalikaas sidaan sameeyay ilaahay wax ka bari naqaska ku celiyo asaa dareemanaa maanta xanuunka ilaada shargaree muuqaalka adiga aad maasan